Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga. Qofta idin la hadlaysa waa Asmaa. Halkaad iga dhageysanaysaan ama iga daawanaysaan waa channelkayga Asmaa Cabdisalaan. Hadday tahay daawada markii u horeysay ee aad soo booqato channelkan, please subscribe-ka ku xasun, like-tu waa kuu free. Haddaad horey noola joogtay oo aad ka mid ahayd asxaabtaydana, like-ta naga ilaawin. asxaabay sidaa nooga barateen caawa waxaan kusoo qaadanaynaa videogeenan qiso cusub oo ka mid ah qisaska barnaamijkii weynaa ee Almusaamax Kariim. barnaamijkan Almusaamax Kariim qofkii horey ula socdayna waa ula socday, qofkii kalena barnaamijkan waxaa la iskugu keenaa laba qof oo maaragtaa wax ka dhexeeyaan dagaal oo lagu heshiisiiyaa. haddii aad jeceshahay daawada inaad ogaatid labada qof oo caawa barnaamijka la iskugu keenayo waa wiilkaas arkaysaan oo la dhaho Yaasiin iyo wiilka kale oo la dhaho Maxamed. qisada wiilkan Yaasiin oo barnaamijka stuudiyaha George Qardaaxi yimaaday hataa in yar idin dulmaro. horta qisadan waxay ka dhacday wadankaas Morocco ama Maqrib, caasimadiisa Casablanca ama Darul Baydaa. Yaasiin oo ah ninka ujeediin oo mubaadarada sameeyay, yacni qof ninka kale oo wiilka kale u yeeray stuudiyaha ugu yeeray sidii u cafiyo oo cafiga sameeyay, cafiga dalbanaya yacni waa ninkaas arkaysaan Yaasiin. Yaasiin wuxuu lahaa saloon oo timaha lagu hagaajiyo oo kuwa yacni timaha nimanka lagu jaro. meeshan maxaa la dhahaa, meesha timaha nimanka saloonka timaha nimanka lagu habeeyo ayuu lahaa ninkan Yaasiin. waxa u shaqeynayay niman baa u shaqeynayay oo meesha ka shaqeynayay. nimankaas waxaa ka mid ahaa ninkaas arkaysaan Maxamed. waxaa dhacday Yaasiin in maaragtaa maalin maalmaha ka mid uu arkay lacagta maaragtaa khasnada soo gasha in markasta lacag maqan tahay, markasta lacag baa maqan. adigu Yaasiin maalinkii dambe si maaragtaa uu ilaalo karo ayuu sameynayay oo aad buu uga warhayay lacagta iyo aad buu u ilaalinayay dadka. waxaa dhacday Yaasiin inuu waayay lacagtii, lacag ka mida inuu waayay oo meesha khasnada ku jirta in lacag laga waayay. adigu waxaa dhacday in maaragtaa uu lacagtii raadshay ninka Yaasiin meesha mulkiilaha ka ah inuu lacagtii raadiyay, khasnadaha shaqaalaha uu baaray. wuxuu arkay khasnadan ninkan la leeyahay Maxamed khasnadiisa, wuxuu ku arkay lacagtii uu tuhumayay inay ka maqan tahay, uu isdhahayay way ka maqan tahay oo dhammaystiran. intii yacni uu isdhahayay way ka maqan tahay ayuu wuxuu ka helay khasnada Maxamed. adigu markuu ku arkay khaanada Maxamed lacagtii uu raadinayay ayuu maaragtaa la dagaalay oo maaragtaa customerkii jooga macaamiishii ninkan Maxamed ahaan aad loo jecel yahay oo aad timaha u hagaajiyo, aad maaragtaa xirfadiisa ugu jajaban ayuu ahaa. dadkii aad bay u jeclaayeen ninkii. wuxuu macaamiishii kusoo dhex tuuray isagoo maaragtaa caynaya ku haya, tuug baa tahay, waad khiyaantay, saanaa samaysay. adigu aad buu u fadeexeeyay ilaa uu maaragtaa isheeg askar ku dalban lahaa oo dadkii meesha joogay oo meeshan yacni ka mid ahaa macaamiishii customerkii dukaanka meesha saloonka ayaa waxay dhaheen please ha ugu dalbin askar, ninkan miskiinka ha ugu dalbin, wax kasta uu kugu sameeyay wayba dhaceen, ha u dalban askar. adigu waxaa dhacday Yaasiin inuu maaragtaa ninkii sidii ku facshiriyay, askartiina muuse u dalbin, uu iska daayay. adigu waxaa dhacday maalinkaas fursad maaragtaa iga raalahaada, fursad xataa oo Maxamed uu isku difaaco Yaasiin muuse siinin. markaas oo Yaasiin waxa uu khaladka u weyn uu sii sameeyay waxay ahayd Yaasiin markii uu maaragtaa Maxamed cayrinayo oo shaqadana ka cayrinayo, ceebeynayana wax uu yacni uu lacagta uu ku arkay khaanadiisa xataa uu siin fursad uu isku difaaco. markaas Maxamed xaas buu lahaa, xaaskiisana ilmihii ugu horeeyay uurkiisa ayay lahayd.
maalmahaas wiigaas ayayba dhalaysayba. adugu waxaa dhacday ii sheeg sidii inay maaragtaa uu ninkii ku cayriyey, nin ay muddo wada shaqeynayeen, asxaab ahaayeen, sidii dad walaalo ah camal bay ahaayeen. adugu maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday ninkan Yaasiin inuu arkay laba nin oo ka mid ah shaqaalaha oo isdagaalaysa. ileen moogtahay waxay dhahdaan Soomaalida xaqa marka afka laga daboolo feeruhu ka dilaacaa. laba nin oo isdagaalaysa ayuu arkay oo nimanka shaqaalihiisa ka mid ah ninkan Yaasiin. wuxuu ugu dhageystay warkooda, midba wuxuu dhahayay wariyaa adiga adaa ka dambeysay in lacagta lagu rido, lacagta aan ku ridno khasnada Maxamed si Maxamed shaqada looga cayriyo. adugu labadii nin wuxuu ugu yeeray askar, wuu caayay, wuu ku qayliyay, askar buu ugu yeeray, laakiin waxba ma tarayso because qof bari ah oo aan dambi gelin ayuu dulmiyay. adugu sidii ayuu wuxuu nimankii ku xiray labadii nin oo booliska ugu dhiibay Yaasiin. kadibna wuxuu raadshay Maxamed, gurigiisuu tegay, meel kastuu ka raadiyay, wuu diiday inuu la kulmo. Maxamed wuu diiday inuu la kulmo Yaasiin. adugu ninkan Yaasiin wuxuu leeyahay waxaan arkay markii dambe barnaamijkan ayaan TV ka daawaday Al-Musaabax Kariim, sidaas ayaana idinla soo xiriiray si maaragtaa Maxamedna loo heshiisiiyo oo aan maaragtaa dambigii u qorto oo aan u raali geliyo oo uu dib shaqada ugu soo laabto. adugu George Qardaaxi wuxuu leeyahay arrintaadu waa arrin kolley ninkaas waa dulmisay, laakiin bal anagu dacwo ayaa u dirnay, fiiri ayaa la leeyahay shaashada ayuu fiirinayaa sida u jeedin. waxaa la leeyahay shaashadan fiiri bal ninkaas inuu aqbalay dacwada in kale. adugu sida arkaysaan goobtiisa shaqada ayaa loogu tagayaa meel uu ka shaqeeyo Maxamed, wuuna aqbalay dacwada. haddana banaanka stuudiyaha ayuu fadhiyaa sida u jeedin. waa loo yeerayaa Maxamed. George Qardaaxi wuxuu leeyahay soo gala Maxamed, wuu soo galayaa. adugu George Qardaaxi Maxamed ayuu la kaftamayaa, wuxuu leeyahay haye maxaa u malaynaysaa. sida caadiga ahayd qof kasta uu malaynaya George Qardaaxi waxaa looga bartay tartamada iyo musaabaqooyinka ayaa looga bartay. wuxuu leeyahay musaabaqa maaha, waa barnaamij kale, ma jecesha inaa aragtid qofka kuu yeeray, fiiri waxaa leeyahay shaashadaas fiiri. wuu fiirinayaa, wuxuu leeyahay ninkan wuxuu arkayaa Yaasiin, wuxuu leeyahay ninkan yaa keenay, ninkan yaa meesha keenay, meesha ma joogaa? mayaa la leeyahay maqrib buu joogaa, wadankii buu joogaa. barnaamijkana markaas waxaa ka socdaa stuudiyaha, barnaamijka waa markaas waa Qaahira. waxaa la leeyahay maqrib ayuu jiraa. marka waxaa la leeyahay bal George Qardaaxi wuxuu leeyahay arrinta dhan wuu ii sheegay. wiilka Maxamed wuxuu leeyahay anigoo u baahan shaqada buu i dulmiyey, wuxuu igu ceebeeyey, dadkii dhan buu igu ceebeeyey, maqrib oo dhan dartiis ayaan u nacay, wuu i ceebeeyey, saasuu ii galay. waqtigii ugu xumaa noloshayda oo aan ugu baahi badnaa shaqo oo xaaskayga oo dhalmo ku dhow ayuusa ii galay. wiig kadib xaaskayga way dhashay, shaqadu iga cayriyey, wuu i ceebeeyey, wuu xiray, wuu xir gaaray yacni. saasuu ii galay ayuu leeyahay. dadkii maaragta wejiga aan ku lahayo dhan wuu i ceebeystay. adugu wuxuu leeyahay George Qardaaxi dhageyso, warqad ayuu kuu soo diray. wuxuu leeyahay ma raba inaan dhageyso ayaa la leeyahay. wuxuu dhaho warqada George Qardaaxi qof kasta oo stuudiyaha lasoo xasumo oo loo yeero wuu u akhriyaa. wuxuu leeyahay walaalkay Maxamed waxaan rabaa inaa i cafisid, mana ogeyn macnihii inaa aniga bili aadan baa ahay, waa khaldami karaa. adugu wuxuu dhiibayaa cududaar buu dhiibanayaa. wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaa iska kii cafisid, wax walba oo adduunka ay iga dalbatay waa sameynayaa, laakiin wuxuu leeyahay damiirkayga ayaa maaragtaa damiirka i dhibaya oo aan ka seexan lahaa inaa ku dulmiyey. labadaa nin baan ka ogaaday, labadaa nin baa arrintaa ka dambeeyey, wax anigu aan dambi ku lahaa maahayn, laakiin aniga haddana waa ku dulmiyey oo arrintaas waa ku degdegay. marka waxaan rabaa buu yiri inaa iga raali ahaatid. adugu warqada wax badan buu dareenkiisa ku cabirayaa Yaasiin. wuxuu leeyahay waxaa wax walba iiga xanuun badan xaaskaago xaamilo ah oo dhal rabtay inaan maaragta shaqada kaa saaray. adugu wuxuu dhiibayaa ninkan maaragta cududaar badan ayuu dhiibanayaa. sidii ayuu wuxuu leeyahay
والمسامح كريم walaalkay cafi please waxaan u imid in dadkii shalay hortooda aan maaragtaa kugu dulmiyay inaan maantana hortooda cafis kugu weydiisto marka wuxuu leeyahay walaalkay cafi aduu sidaas ayuu leeyahay warqada ku qoran wiilkan sida uu arkaysiinba madaxuu ruxaya uu iska murugaysan yahay uu iska oynaya wuxuu yiri aniga wuxuu igu sameeyay qof bili aadana laguma sameeyo ma saamixi karo aduu George Qardaaxi wuxuu leeyahay yaasiin buu ku leeyahay yaasiin hadal oo wax uu ku qancaneh wuxuu leeyahay maxamed cafi walaalka ka weyn oo kala ahay waa ku khaldamay adduunkana qof kasta oo bili aadana wuu khaldamaa maantay dulmiga aan kugu sameeyay dartiis kama hurdo damirkayga ayaa idhibaya please wuxuu leeyahay cafi aduu sida arkaysaan maxamed wuxuu leeyahay ma cafin karo hal shardi ayaan ku cafin karaa halka shardi aan ku cafin karo waxa weeye buu leeyahay in maaragtaa waa cafinaya laakiin noloshiisa wajigayga iyo wajigiisa iskuma hor imaanayaan oo ammaanku isiinaya George Qardaaxi wuxuu leeyahay ha sameynaysaas nin qalbi fiican inaad tahay oo qalbi wanaagsan oo waxaan ka dareemay buu leeyahay marka islaamisi gacmahaaga qabowgooda ayaan ka dareemay nin aad maaragtaa u degan oo maasha Allah inaad tahay aduu wuxuu leeyahay qalbigaaga fiican maanta wuxuu leeyahay iska cafi oo ilaahay dartiis ku cafi adugu madaxayga ku cafi adugu maxamed aakhirkii wuxuu leeyahay waa cafinaya sida maaragtaa caadadana barnaamijkan markasta uu qofku dhaho waa cafinaya qofka looguma daayo waa inuu dhahato fiiriyo shaashada waan ku cafiyay walmusaamax kariim qofka wax cafiyana ayaa kariim ah adugu sidaas ayuu maaragtaa wuxuu leeyahay maxamed musaamax kariim waana ku cafiyay sidaas ayuuna ku cafinayaa alxamdulillaah markastoo barnaamijkan ay guul ku dhamaato oo labada qof is cafiyaan jamhuurtu maaragtaa yacni dadka meesha farfadhiya istuudiyaha fadhiya 300 oo qof dadka badan u dhaafaysa waaye kor u dhaafaysa aad ay u farxaan iyo daadiyaha barnaamijka George Qardaaxi iyo qof kastoo dhageysanayaba way iska jecel yihiin dadka maaragtaa inay maaragtaa qaso walba inay farxad ku dhamaato ayaa la jecel yahay marka maxamed uu cafiyay yaasiin si waliba qurux badan oo farxad ku jirto ayuu cafiyay halkaas maaragtaa ayuuna maaragtaa waxaa la leeyahay sitaarka furo ayaa la leeyahay qolada barnaamijka wada sitaarka ayay furayaan sidaas ayuu maaragtaa ujeedaanba way ishaagaraynayaan sidaas ayayna isku cafiyeen sidaas ayayna wadankoodii labadoodaba ku noqdeen marka barnaamijkan musaamax kariim waa barnaamij iska fani ah oo dee maaragtaa hawl weyna qabanaya oo dee laba qof oo muslim ah in la heshiisiiyo oo maaragtaa qalbigooda wuxuu ku jiray maaragtaa wanaag loogu bedelo oo maaragtaa xiqdi iyo xaasnimo isku qabeen oo la iscafiyo wax ka weyn ma jiraan ayaana u malaynayaa marka kolley ninkaas George Qardaaxi Allah soo hanuuniyo ayaan dhihi karnaa shaqo maaragtaa culus ayuu hayaa oo dee dadkaas oo dhan oo wax isku qaba ayuu maaragtaa qalbiyadooda isku soo dhaweynayaa oo way is cafinayaan sidaas ayayna maaragtaa maxamed iyo yaasiin isku cafiyeen dulmiguna waa waxyaalaha maaragtaa aad xun ugu waaweyn dambiyada ugu waaweyn ayuu ka mid yahay oo maaragtaa sida ujeedaanba maxamed aad ayuu u murugaysanaa isaga dhan si kaloo noqday yacni dee wuu dulmiyay wax laisku tilmaamana waxa ugu xun waa tuugnimo marka tuugnimo ayuuna ku tilmaamay asxaabay caawa barnaamijkan musaamax kariim qisadaas yarta ayaan kasoo qaadanay intaa qisadan iyo qisa lamida oo ka xiiso badan iskugu imaan doono marmarka qaarkood barnaamijkan waa qisooyinka aan soo daayay waa soo dhexgelin doonaa intaa qisadan qisa lamida iskaga imaanayno waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh